madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qayb galay aaska marxuum Jaamac Nuur Xasan Warfaa oo kamid ah waxgaradkii waqtiga badan galiyay sidii ay Soomaaliland horumar u gaari lahayd. madaxweynaha uu helinaya saraakiil ka tirsan golayaasha kala duwan ee dhaqanka, waxgarad, culimo, madax dhaqameed iyo boqolaal ka tirsan shacabka reer Soomaaliland ayaa salaada janaasada aaska marxuum Jaamac Nuur Warfaa oo lagu aasay xabaalaha Baqiic ee waqooyiga caasimadda Hargeysa ka qayb galay, waxaana si mugle looga sheekeeyay doorkii shariifka ah oo marxuumku kaga jiray bulshada iyo tusaalaha ee wanaagsanaa ee wax u bixin jiray. madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa ku dheeraaday sifooyinkii wanaagsanaa oo marxuum Jaamac Nuur Xasan Warfaa caanka ku ahaa iyo sidii uu maalkiisa iyo maskaxdiisa u geliyay horumarinta bulshada reer Soomaaliland. waxaanu soo arrimahaasi ka hadlayay uu yidhi ilaahay waxaan uga rajaynaynaa Jaamac waxa dadka aad wanaagga la isku raacsan yahay, hadday deeq tahay, hadday hadal dabacsan tahay, hadday dad ururin tahay, ilaa iyo intii uu yaraantiisii hana qaadayba baayac mishtar buu soo bilaabay, baayac mishtar badan buu sameeyey, taajir weyn buu ahaa. haddana wixiisi wuxuu ku bixiyey danta guud iyo halkii la yidhi dadka danyarka waxa la siiyo, ilaa uu isagu markii dambe ahaa nin aan xoolo haynin oo wixiisi u horay dadka. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu wixii uu sadaqa hore u geystay wanaagna abaalkiisa siiyo, inagana wada xariisto iyo wixii muslimada. wassalaamu calaykum. waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, muqbahiyaha caalamiga badda Caasimada TV magaalada Hargeysa.